markale duhur wanaagsan waxaad maqasheen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan waa 26 bisha shanaad ee May sanadka 2019 Axmed Cadow ayaa warka dalsan soo saaray Maxamed Cabdi Geedishiine iyo aniga Firdawsi Saal ayaa warka soo jeedinay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa ka hor yimid habraaca dowladda Soomaaliya u dejisay doorashooyinka maamul goboleedyada dalka sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Xuseen Washington. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Cali Gacal Casir ayaa ka hadlay arrimaha guud ee doorashooyinka dowlad goboleedyada iyo arrimo ku aadan khilaafka maamulka galmudug. Cali Gacal Casir waxa uu sheegay in kulan ay yeesheen xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug garabka cadaado ay isku raaceen in doorashada madaxweynaha galmudug la qabto waqtigii loogu talagalay laguna heshiiyey ee ahaa 4 bisha July ee sanadkan 2019. sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug garabka cadaado oo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana shir jireed u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu eedeemo kala duwan u jeediyay maamulka Puntland iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira isagoo labada dhinac ku eedeeyay in arrimaha siyaasadda galmudug ay faragelin qaawan ku hayaan. isagoo sii hadlayay Cali Gacal Casir ayuu tilmaamay in xildhibaanada galmudug ay taageersan yihiin go'aankii xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasoo lagu shaaciyay habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada dalka ka jira. war-saxaafadeed ayaa ka soo baxay xildhibaanadii dowlad goboleedka galmudug oo shir u fadhiistay maanta oo taariikhdaas waxayna soo saareen war-saxaafadeedkan waxaana uu qoran yahay sida tan waxaa caawa kulan afur ah iyo wada tasha ah isugu yimid xildhibaanada iyo guddoonka baarlamaanka galmudug si la isaga xal wareysto xaaladda maamulka galmudug iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashada maamulka galmudug oo waqtigeedii la joogo. xildhibaanada waxa ay ka midaysan yihiin oo isku mowqif ay ka noqdeen in doorashada maamulku ay dhacdo waqtigii loo asteeyay oo ay ku heshiiyeen ummadda wada dhisatay galmudug taasoo ku dhulmaysay in doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug la qabto 4 bisha July 2019 ka horna ay tahay in la soo doorto xubnaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug in loo turo shacabka ay wakiilada ka yihiin oo runtii ay haysato xaalado kala duwan oo nololeed si taasi u dhacdana ay muhiim tahay in mas'uul kasta oo ka tirsan galmudug ay waajib ku tahay in uu ilaaliyo dastuurka ay ku wada heshiiyeen reer galmudug. dhinaca kale dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa ka soo horjeestay go'aankii xalay ka soo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya kaasoo lagu shaaciyay habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada dalka. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dastuurka Hirshabelle ayaa waxaa lagu sheegay in warqadii ka soo baxday dowladda Soomaaliya ay baalmarsan tahay hanaanka federaalka dowlad wadaaga iyo daadejinta nidaamka dimuqraadiga dalka. sidoo kale waxay sheegtay in ay dowladda Soomaaliya go'aankaas ay qaadatay uu ka hor imaanayo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isla markaana Hirshabelle ay mowqifkeeda ka cadeysay dhinaca ku aadan habraaca doorashooyinka ay dowladda Soomaaliya xal soo saartay. dhinaca kale waxaa sidoo kale iyadana dowlad goboleedka galmudug ay si cad u sheegtay in gabi ahaanba ay ka soo horjeedo habraacaas kadib markii ay xustay in aan la tashi lagala sameyn oo dowladda Soomaaliya iyada ay iska soo saartay go'aankaas. waxaana wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug uu sheegay in mowqifkooda ku aadan arrimahaas ay tahay in aan lagala tashan isla markaana ay qaadacayaan go'aankaas ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo ay ku shaacisay habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada dalka ka jira. mahadsanid Washington. xukuumadda Soomaaliya waxa ay fariin u dirtay ardayda maalinimada bari ah u fariisanaysa imtixaanaadkii ku celiska ahaa ee dawladda sida uu faahfaahinta warkan inoogu hayo wariyaheena Axmed Cadow. 27 bisha Maarch 2019 oo ku beegan maalinta berrito ah waxaa wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ay sheegtay inay tahay maalinta loo asteeyay in dib loo galo imtixaanaadka shahaadiga ah ee dalka oo ay dowladda federaalka qaadayso kadib markii uu fashilmay imtixaankii hore
sidoo kalena waxaa wasaaradda waxbarashadu ay ardayda ay kula talisay arrimo badan oo la xiriira imtixaanaadka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Faysal Cumar Guuleed ayaa waxa uu sheegay in kulan looga hadlayay hanaanka imtixaanaadka ee dugsiyada sare ee dalka oo u fariisanayo iyaga imtixaanaadkaas ay la qaateen. kulankan oo ka dhacay xarunta jaamacadda ummadda ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay la taliyayaal sare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. ujeedadu waxay ahayd sidii 27 bisha oo maalinta berrito u qabsoomi lahaa imtixaanaadka iyo sidii ardayda Soomaaliyeed ay kaalintooda kaga qaadan lahaayeen dibna loogu geli lahaa imtixaanaadka. la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in imtixaanaadku ay yihiin kuwo guuleysan doono loona baahan yahay in ardaydu ay muujiyaan qiimahooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin oo ay soo mareen. Faysal Cumar Guuleed oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay diyaarisay dhammaan goobihii loogu talagalay imtixaanaadka sanadkan dugsiyada sare ee dalka. hadalka wasiirka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyada oo wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre uu sheegay in horey loo joojiyay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka oo dowladda federaalku ay qaadaysay kadib markii imtixaanaadkaas qashkooda lagu faafiyey baraha bulshada suuqyadana si caadi ah loogu kala iibsanayay. arrintaas ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoo ardayduna si weyn ay uga soo horjeesteen arrinta la xiriirta in dib loogu celiyo imtixaanaadka. inkasta oo dowladda federaalku ay ku adkeysanayso haddana wasaaraddu waxa ay sheegtay in maalinta berrito ah marka ay bilaabanayaan imtixaanaadka dhammaan la xiri doono baraha bulshada oo hawada laga saari doono, laakiin ilaa iyo hadda ma muuqato saansaanta waxaana dadku ay ka dhursugayaan sida uu u hirgeli karo go-aanka dowladda ee ah in la xirayo baraha bulshada iyo internetyada. sarkaal ka tirsanaa ciidanka caalamiga ee ka howlgalka u joogay badda Soomaaliya ayaa geeriyooday. sarkaalkan waxa uu ka tirsanaa ciidamada koonfurta Kuuriya ee howlgalka ka waday madaxa Soomaaliya kuwa oo qayb ka ahaa la dagaalanka kooxaha burcadbadeed ee ka qooleysata xeebaha dalka Soomaaliya. sarkaalkan ayaa markii uu geeriyooday waxa dib ugu laabtay dekad ku taala Kuuriyada Koonfureed halkaasoo ciidamadii uu la socday markabkaasi ay galbinayeen qaar ka mid ah maraakiibta dagaalka ee dib ugu laabteen dalkooda kuwa oo bedelay ciidamo ka socday Kuuriyada Koonfureed oo qaybta ka ciidamada isbahaysiga la dagaalanka burcadbadeed ee badaha Soomaaliya. sarkaalkan ayaa la sheegay waxa uu ku geeriyooday kadib markii bir nooca wiishka ay qaadaan ama ay xambaaraan maraakiibta ay ku soo dhacday taana ay keentay inuu u geeriyoodo shilkii halkaasi ka soo gaaray. saraakiisha ciidamada militariga dalkaasi gaar ahaan kuwa badda ayaa sheegay in sarkaalkan dhaawaca uu soo gaaray markii la dhigay isbitaalka dhaawaca u geeriyooday. ciidankaas South Korea ayaa waxay qayb ka yihiin ciidamada huwanta ay ka howlgala badaha dalka Soomaaliya kuwa oo la sheegay inay ka hortageen kooxaha burcadbadeed ah ee qaskay qalanqalka ka wada sida la sheegay xeebaha dalka Soomaaliya markaana afduub kula dhaqaaqa maraakiibta ganacsi ee isaga kala gooshta badweynta Hindiya. wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa fulisay go'aan laga soo saaray shirkii golaha wasiirada Khamiistii la soo dhaafay. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu wargeliyay hay-adaha qaramada midoobay ee wada shaqayntu ay kala dhaxayso wasaaradda caafimaadka Soomaaliya inaysan mar dambe shirar ku gelin magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. sidoo kalena wasaaraddu waxay hay-adaha UN-ka ah ugu baaqday inay shirarkaasi ay ku qabtaan gudaha dalka isla markaana ay u soo wareejiyaan dalalka deriska sida waa dalka Uganda iyo Ethiopia. sababta arrintan wasaaradda caafimaadku waxa ay ku sheegtay in wakiilada wasaaradda caafimaadka loo fududeynin safaradii u aadi jireen gudaha dalka Kenya. go-aankan ayaa waxa uu dhammaanba lagu wargeliyay wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya kadib shirkii golaha wasiirada Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho isla markaana waxaa loo sheegay in gebi ahaanba la joojiyay hay-adihii wada shaqayntu kala dhaxaysay ee shirarka ku qaban jiray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. hadal qoraal oo ka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay inay ka go'an tahay taageerada ay siiyaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya si nabadda loo taageero. warkan waxaa faahfaahinaya wariyaheena Saalax Wasuge.
dowladaha xubnaha ka ah ururka midowda yurub ee AU-da ayaa cusbooneysiiyey taageerada ku aadan nabadda geeska Afrika xilli ay ciidamada nabad ilaaliyaasha ku sugan Soomaaliya ay la halgamayaan dhimis lagu sameeyay qarashka maalgelinta. fariinta AU-da ee ku sheegay inay taageerayaan Soomaaliya ayaa waxa ay ka soo baxday kadib markii ay madaxa arrimaha dibadda iyo ammaanka siyaasadda AU-da Federica Moreno ay dhowaan booqasho ku kala bixisay dalalka Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia lana soo kulantay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre, madaxweynayaasha Djibouti, Kenya, gudoomiyaha ururka midowda Afrika Muuse Faki Maxamed. booqashada ayaa timid xilli ay weli sii socdaan xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex aluushan dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo isku haysta muranka badda. madaxa arrimaha dibadda iyo ammaanka siyaasadda AU-da Federica Mogherini waxa ay sheegtay inay madaxdaasi kala soo xaajooday nabadda gobolka, arrimaha ammaanka iyo la shaqeynta AU-da ee dalalka Soomaaliya, South Sudan, Congo Democratic iyo taageerada dowladda federaalka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. muddadii ay joogtay Soomaaliya waxay booqatay howlgalka tababarka AU-da ee Soomaaliya, howlgalka AU-da ee dhismaha awoodda Soomaaliya ee ciidanka dowladda federaalka. midowda Yurub waxa uu weli ka mid yahay deeq bixiyaasha ugu waaweyn ee taageerada la karab taagan dowladda federaalka. sanadkii 2017 midowda Yurub waxa uu ballan qaaday in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay maalgelin doonaan lacag dhan 1.3 bilyan oo dollar, taasi oo ay wadartu guud ahaan taageerada Soomaaliya ay noqonayso 4.5 bilyan oo dollar tan iyo inta laga gaarayo sanadka 2020. deeqahaasi waxaa ku jira mushaaraadka la siinayo ciidamada AMISOM, booliska dowladda federaalka, horumarinta kaalmada iyo 596 milyan oo dollar oo loogu talagalay taageerada howlgalka samafalka aadamiga oo keliya, taasi oo wax looga qabanayo waxyeelada laga argagaxo ee arrimaha abaaraha. warka duhurnimo dhegeystayaal halkoo idinkaga imaanayo waa idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho. markaana wararka dibadda, telefishinka xoutiyiinta dalka Yemen ee Al-Masira ayaa waxa uu maanta sheegay in diyaarad daroon ah ay duqeysay hangar ciidamada militariga Sacuudiga ay ku lahaayeen garoonka diyaaradaha magaalada Jisaan ee dalka Sacuudiga, kaasi oo u dhow xuduudda dalka Yemen. xoutiyiintu waxa kale oo ay sheegeen inay duqeyntaasi u adeegsadeen diyaarad daroon oo nooceedu ahaa Qazafa 2K, taasi oo ay sheegeen inay beegsadeen diyaarado dagaal oo ku xareysnaa hangar la dhigo diyaaradaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Jisaan ee wadanka Sacuudi Arabiya. ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Sacuudiga iyo isbahaysiga militariga ee Sacuudiga iyo sidoo kale Imaaraadka la dagaalamaya maleeshiyada xoutiyiinta tan iyo bishii Maarch ee sanadkii 2015. Khamiistii la soo dhaafay maleeshiyada xoutiyiintu waxa ay sheegeen inay diyaarad daroon ah ku weerareen garoonka diyaaradaha magaalada Najraan oo qiyaastii 840 kilomitir dhinaca galbeedka kaga toosan caasimadda Sacuudi Carabiya ee Riyaad. ugu dambeyntiina gudoomiyihii baarlamaanka dalka Iiraan ayaa dib loo doortay. kulan xubnaha baarlamaanka dalkaasi ay ku yeesheen caasimadda dalka Iiraan ee Tehraan ayay dib u doorteen gudoomiyihii baarlamaanka dalkaasi Iiraan. arrintan ayaa timid kadib markii dowladda Iiraan ay cadaadis ay kala kulantay dhinaca militariga ah dowladda dalka Mareykanka. madaxweynaha dalkaasi Xasan Ruuxaani ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka dalkiisu ay doortaan gudoomiye cusub, laakiin golaha baarlamaanka dalkaasi ayaa waxay dib u doorteen gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iiraan. shacabka ku dhaqan dalkaasi Iiraan ayaa waxay soo dhaweeyeen dib loo doorto gudoomiyihii hore baarlamaanka dalkaasi Iiraan. guud ahaana dhegeystayaal warkii duurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho waa naga intaa. ciddii wararkeena doonaysa waxay mar kale dib uga heli karaan bogga internetka ee aanu ku leenahay ee radio dalsan.com.